markay bilicdeeda magaalada Muqdisho dib u soo noqotay ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho kireynta guryaha oo qaali ay ku noqotay dadweynaha reer Muqdisho qaarkood iyadoo oo dib ay ku tahay inay kireystaan dadka shacabka ah oo danyarta ah taasi amar aan wax ka weydiiyay shacabka reer Muqdisho qaarkood gaar ahaan dadka danyarta ah ayaa waxay u sheegeen telefishinka Universal gaar ahaan faaliyaha qaranka in ay bixi karin kireynta guryaha kiradiisu waa haday 60,000 haday hajirta hadaan 170 oo dollar way mana awoodno maxaa ka shaqeysaa marka hooyo ilmaha ku biilay xamaali bakaara iyo waxa ka shaqeystaa qaar ka mid ah milkiilayaasha magaalada Muqdisho ayaa wax ka weydiiyay cabashada shacabka waxayna igu jawaabday sida tani qolkii $100 ama $120 $120 iyo $100 qof shacab oo miskiin waxba haysan miyuu awoodaa aniga waxba igama gelin qofkii oo iska bixi karan baa guriga soo dagay aniga dan ma arkino iguma jirto gooni in aniga raqiisiyo waay aniga waxaan deganahay magaalada Fiyaalaheeda meeshan waa u jeedaa waa agaarkii madaxtooyada agaarkeeda anina fursaddan ka faa'iideysanayo meesha maadaama nabad loo soo aaday iyo madaxtooyada agaarkeeda marka waxa ku weydiin lahaa abaaya inkasta ay tahay oo Ilaahay isku naxariisto adin naxariisanayay shacabka maxaa wallahi aniga waxba igama gelin shacabka waa ma santaa walaal okay waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ku soo badanayo dadweyne Soomaaliyeed oo ka imaanayo qaaradaha dunida qaarkood kuwaas oo kireysanayo guryaha magaalada Muqdisho Amran Xaaji Jimcaale faaliyaha qaranka Universal TV magaalada Muqdisho in ka badan